muran iyo wada shaqayn la'aan u dhaxaysa taliyayaasha ciidamada AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa caqabad ku noqotay howlgalkii ugu dambeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Sidaas waxa uu galka baaristu ka ogaaday saraakiil ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiil amni oo Soomaali ah. muranka ayaa si gaar ah ugu dhaxeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sirreeye Guud Odawaye Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidamada AMISOM Generaal Diomid Ndagaya. muranka ayaa intiisa badan salka ku haya howlgal militari oo muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellada Dhexe, kaasi oo hoggaan ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sirreeye Guud Odawaye Yuusuf Raage. howlgalka Shabeellada Dhexe waxa uu bilowday 23kii bishii May waxaana uu socday muddo bil ka badan, waxaana gunaanadkiisii ay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku dhawaaqeen inuu guulaystay. hase yeeshee taliyaha ciidamada AMISOM Generaal Diomid Ndagaya iyo taliyaha ciidamada Burundi ee ka howlgala Shabeellada Dhexe Sirreeye Guud Telesforo Brandreka ayaa ku eedeeyay Sirreeye Guud Odawaye Yuusuf Raage inuu howlgalkaasi isku keli yeelay oo aanu la socodsiinin taliska AMISOM, gaar ahaan ciidamada Burundi oo qaabilsan deegaanka uu howlgalku ka dhacayay. sidaas waxaa galka baarista u sheegay sargaal sare oo ka tirsan xarunta looga arrimiyo ciidamada AMISOM. sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta, waxa uu galka baarista u sheegay inaan weli la xallin muranka u dhexeeya labada taliye oo soo bilowday bishii hore. cuqdad xun ayaa ka dhaxaysa labadooda, ayuu ii sheegay sargaalkaasi oo la socda muranka u dhexeeya labada taliye. sargaalka sare ee ka tirsan AMISOM waxa uu sheegay galka baarista in Sirreeye Guud Odawaye Yuusuf Raage uusan howlgalkaasi la qorsheynin taliyaha ciidanka AMISOM. in la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan. taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa uu doonayay inuu muujiyo kartidiisa inuu howlgalkaasi fulin karo AMISOM la'aanteed, taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin. markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha AMISOM, ayuu yidhi sargaalkaasi oo intaasi ku daray waxa uu ka doonaya AMISOM in diyaarado lagu gargaaro gantaallo ku tuura meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee duurka ah, laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah. taliyuhuna waa uu ku gacan sayray qayladhaantiisii, ayuu yidhi sargaalkaasi ka tirsan AMISOM. sargaalkaasi oo ka hadlayay sababta ay AMISOM ciidamo la howlgala kuwa Soomaalida ugu diri weyda howlgalka Shabeellada Dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay AMISOM kala wareegaan 3 saldhig oo kala ah Buurane, Goloole iyo Ceelbaraf si ay u diyaariyaan, ayuu yidhi ciidamo guurguura oo la howlgala ciidanka Soomaalida. markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay idinka ayaa gacmaha naga xiray, waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan. waxaan idinku caawin karnaa inaan madaafiic ku tuurno meelaha shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno, ayuu yidhi sargaalkaasi. laba sargaal oo dhinaca amniga ah islamarkaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyey kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee howlgalkii ka dhacay Shabeellada Dhexe. galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sirreeye Guud Odawaye Yuusuf Raage, waxaana uu ku gacan sayray inuu waraysi ka bixiyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo taliyaha AMISOM Generaal Diomid Ndagaya. hase yeeshee afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur waxaa isagoo la hadlayay galka baarista uu beeniyey inuu wax khilaafa ka dhexeeyo AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay inaanu jirin wax muran ah. maya anugu ma arko mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhaxaysa ma ogi, laakiin howlgalka ka jiray Shabeellada Dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay AMISOM ka qayb qaateen weliba xilligii dambe oo mataqaanaa la weerarayey meesha la yidhaahdo Xaaji Cali Fooldheere iyo Qurac Madoobe iyo Waaraxley markii la weerarayey in mataqaanaa ay ka qayb qaateen. ma ogi marka mataqaanaa wararkan kale oo wariyaal baa jira meesha adinku aad ka hesheen, laakiin wax khilaaf aniga mataqaanaa oo aan ogahay ma jirto oo dhexgalay howlahaas dhexgalay ma ogi. marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xilif ah ama muran oo ka dhexeeya taliyaasha AMISOM iyo taliyaasha SNA ma jiro? ma jiro mana ogi aniga, mana jiro, umalayn maa inuu jirana. haddaan dib ugu laabanno waxay ahayd bay leeyihiin AMISOM inaan ka guurno Golooley, Buurane, Ceelbaraf iyo Miir Taqwas. ilaa haddana kamaanaan guurin. taasi waa iyaga dhinacooda iyagaasaas dhahaya. meelaha in laga guurana waxay noo sahli lahayd bay dhaheen inaanu helno ciidamo guurguura oo la shaqeeya ciidamada Soomaaliya, laakiin deegaanadaas lama wareegin. marka su-aasha la isweydiin karo waxa weeyaan ciidanka Soomaalidu maadaama kulankii Abriil ma la yiri iyagu hoggaanka ha qabtaan howlgallada,
diyaar ma u yihiin furimahan hore saldhigyada ku yaala inay kala wareegaan amisom? annaku ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta aad sheegtay way degan yihiin, amisomna way degan tahay, waana laga howlgalaa oo ciidamada maaragtay Soomaaliya way ka howlgalaan, laakiin ma taqaana annaka ama gaashaandhiga ama amisom meel ay tiri ma taqaana kaalada nagala wareega ama lagu heshiiyey in la yiraahdo bilmatalan dhowr aag ama dhowr saldhig oo fadhiyaan lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya ma ayna dhicin, mana jirto. laakiin xilligii ay dhacdo in la yiraahdo meel hebel iyo meel hebel way ka guuraysaa amisom diyaar bay u yihiin ciidamadoodu in ay saldhigyadaas ay kala wareegaan. qoraallo ku salaysan murankan ayaa la sheegay inay isdhaafsadeen taliyayaasha ciidamada amisom iyo SNA. qoraalladaasi oo loo diray wakiilka gaarka ah ee midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. dalka baaristu waxa uu helay warqad uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga jawaabayay warqad uu 4 Juulaay taliyaha amisom u qoray Ambassador Madeira, taasi oo kula socodsiinayay xiisadda ka dhalatay howlgalka Shabeellada Dhexe. warqadda uu qoray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage waxa uu galka baaristu ka helay 2 ilo wareed oo kala duwan. galka baaristu waxa uu warqadan iyo tan uu qoray taliyaha ciidanka amisom hordhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage, waxaana ka codsaday inuu wareysi ka bixiyo. taliyuhu waxa uu ku gacan sayray inuu wareysigaasi bixiyo. sidoo kale taliyuhu ma beenin jiritaanka waraaqahaas. taliya Odawaye Yuusuf Raage waxa uu ku sheegay warqadda uu qoray Ambassador Francisco Madeira in warqadaasi uu soo qoray taliyaha ciidanka amisom aysan sawir sax ah ka bixinaynin xaaladda, waxaana uu ku tilmaamay isku day lagu diidayo laguna qarinayo guuldarrooyinka ciidamada Burundi ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu ku sheegay qoraalkaasi. Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage waxa uu ku eedeeyay ciidamada Burundi inay madadaaliyaan Al-Shabaab, isagoo yiri Al-Shabaab waxay saldhigyo ku leeyihiin meel 8 ilaa 13 kiiloomitir u jirta saldhigyada ciidamada Burundi. waxa uu sheegay inay si caajis ku jiro u waajahaan Al-Shabaab, ayna ka doorbidaan inay xeryahooda iska joogaan oo biyahana dhinaca hawada looga soo dhaaniyo magaalo u jirta 8 kiiloomitir halkii ay ka furi lahaayeen wadooyinka sida uu ku sheegay qoraalkaasi. waxa uu Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage ku sheegay warqadaasi inuu kala xiriiray amisom inay howlgal wadajir ah sameeyaan, balse ay amisom la yimaadeen cudurdaar ah inay ciidamo soo ururinayaan iyo tasiilaad inay u baahan yihiin. waxa uu ku sheegay warqadaasi in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen howlgalkaasi qaybta 5aad ee amisom la'aanteed. ujeedooyinkii howlgalkana la gaaray iyadoo la dilay in ka badan 100 Al-Shabaab ah oo ay ku jiraan mintidiin ajaanib ah. galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira oo isla markaana ah madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale u gudbiyay Ambassador Madeira qoraalladii ay u kala direen labada taliye. ilaa haatanna kama uusan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aan u gudbiyey. sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidamada amisom General Diomede Ndegaya. markii uu wareysiga ogolaadana waanu idiin soo gudbin doonaa. 21 bishii Juun ee aynu soo dhaafnayna howlgalka ciidamada amisom waxay ciidamadooda kala baxeen magaalada Maringubaay ee gobolka Shabeellada Hoose. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD waxa uu VOA u sheegay in la filayay in ciidamada Soomaalidu ay la wareegaan tuulada Maringubaay. tuuladaasi waxaa haatan ka taliya ururka Al-Shabaab. gudoomiyaha oo xilligaasi la hadlayay VOA waxa uu sheegay sidan: arrintaas waxaa la filayay in ciidamada Soomaaliya oo ay maxaafurada bedelaan ciidanka amisom mayna berin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka amisom ay kasoo baxeen meeshii maxaafurada argagixisada Al-Shabaab kaliya ayagoo maxaafurada oo sahan ayay yimaadeen. hadda si toos uma qabsan laakiin sahankoodii waa yimid ee nolol sheegay. marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada amisom iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo? maxay isugu haleeyeen? arrintan ugu baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday muddo laga joogo dhowr sano in ciidamada amisom macnaha meelaha ka baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga lagu wareejinayo. waxay ka dhacdeen maxaafurada afgooye dhowr bilood ka hor laakiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey amisom markay afgooye ku guuraysa xafladii lagu qabtay. haddana waxay ku guureen dhowr bilood ka hor Mashalay oo u dhaxaysa meeshii la yiraahdo Shalambood iyo Qoryooley ama Danaw ama Kabtalaas iyo Qoryooley inta u dhaxaysa Mashalay tuulo ku taalo Qoryooley u jirta
adigu ilaa 10 kilomitir halkaas ciidan oo xoog dalso laga geeyno ciidan military laga geeynin halkaas shabaab maxaa ku dib u qabsaday oo haddana maxaa ku radaa isu socodka waryoolay iyo maxaa ku radaa shalambood iyo markaba maxaa ku radaa caqabada ayaa ka jira waa nimanka argixisada deegaanka looga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan may sameeyaan maadaama afgood maxaa ku lagu guuleeyay ciidamada Soomaaliyeed kala wareegeen ciidanka Amsom tan la marguba taas oo kala waa shalay markii xafladda la qabanayay aniga ka barashaab ahaan waa ka hadlaya waxaan nidhi dowladda federaalka oo siixday iyo dowladda koonfurta in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg u keenaan si argixisada maxaa ku radaa ayna mar dambe maxaa ku radaa dadka maxaa ku radaa waxyaalo u geysanin ayna dib u qabsanin shalay marka way dhacday hadda arrintaas afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur waxa uu sheegay inaan iyaga lala socodsiin inay la wareegaan marin gubay ma la idin sheego ma la idin nagala wareego maya ma ogi aniga taas ma ogi maya adigu waxa leedahay looga sheegin ama ma ogi sidaad sheegayso laakiin gudoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose wuxuu leeyahay aniga joogay oo waxa ahayd in ciidamada SNA ay yimaadaan marka xageeday wax iska qaban laayeen horta gudoomiyaha saga xukuuma gobolkaas oo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose laakiin ka military ahaan annaka ama ka nidaam ahaan marin gubay waxa Amisom waxaan isleeyahay qiyaastayda iyo aqoontayda waxaan isleeyahay waxa marin gubay ugu guureen xeel dagaal bay ugu guureen iyo war ay heleen in mataqaana meeshaas ay ka guuraan waxa ay mataqaana ayakana ka guuray laakiin meel ciidan ka guurayo waxaan ku soo celcelin su'aal ma aqaano waxay meesha wax ka jiraan marin gubay annaka ma nolo sheegin oo nalama dhihin kaalaya la wareega because marka ay la wareeg ay ka guurayeen already annaku waxaan ku jirnay iyo hogaankanaga iyo kantaliganaga iyo taliyahanaga kulliga waxaan ku jirnay hawsha Shabeellada Dhexe marka ay dhacday in la wareego su'aasha laba jeer baa igu soo celisay Harun Macruufow afgooye waxa ku yaal saldhigga ugu weyn waa la wareegay ciidamada la wareegay marka meel la wareegayna waa meel adduunyada ay fiirinayso oo mataqaana warbaahinta oo dhan ay joogto afgooye waa kala wareegnay laakiin meel kale oo aan kala wareegnay oo Amisom ay dirkaalay nagala wareega anigu aan ka baaqsanay ma jirto shan wadan oo kala ah Ethiopia, Kenya, Uganda, Burundi iyo Djibouti ayaa ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya taliska Amisom iyo ciidamada Soomaaliduna waxay bishii Abriil ku heshiiyeen in ciidamada Soomaalidu ay hoggaanka u qabtaan hawlgallada marka la gaaro dabayaaqada sanadkan murankan ayaa la sheegay inuu dib u dhac ku noqon karo hawlgallada wadajirka ah iyo xil wareejinta mas'uuliyadaha amniga isla markaana ay ka faa'iideysan karaan ururka Al-Shabaab sida uu ku doodayo wasiirkii hore amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaa moodaa in xiriirka ka dhaxeeyo labada iyo coordination ka dhaxeeya Amisom iyo ciidamada SNA Soomaalida inuusan wanaagsanayn saameynta ugu weyn waxa waaye in ay siisay fursad Al-Shabaab ay isku soo kabaan reorganization ama ay dib isugu soo abaabulaan يعني meelo badan oo deegaano badan oo markaas nabad ahaa ama ay markaas base u ahayd Amisom ay ka baxeen la rabay in ciidamada Soomaaliyeed ay yimaadaan ay Al-Shabaab la wareegeen oo kamid ah Shabeellaha Dhexe iyo Galmudug labadaba arrintaas marka wada shaqayn la'aanta iyo doorkii Mareykanka gaar ahaan duqeymihii oo maqan ma kula tahay inay dhiirigelin u noqon karto Shabaab absolutely waa sida sheegtay waa dhiirigelin weyn bay u tahay waa laba furun waxaa ka bilowday wada shaqayn la'aan oo waa Amisom iyo SNA oo aan wada shaqaynin fursad weyn bay u tahay Al-Shabaab midda kaleetana waxa waaye droneski iyo weeraradii lala beegsanaya Al-Shabaab oo ka dhanka Al-Shabaab oo ay wadeen Amerikaanka mar haddii ay Amerikaan ka baxeen horta waa joogsadeen waxaa u maleynaya January 19 inay ugu dambeysay ayaan isleeyahay waa sax marka waxay fursad weyn siisay Al-Shabaab Samira Gate oo khabiir dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegtay inaysan la yaab lahayn wada shaqayn la'aanta taliska Amisom iyo taliska ciidanka Soomaalida waxay sheegtay inay ku kala shaqaynayaan 2 saacadood oo kala duwan
xawaaraha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay dalbanayaan maadaama ay haatan hoggaanka u qabteen howlgallada ma aha mid ay la saaqaadi karaan AMISOM sababtoo ah marxaladaha kala duwan ee uu maro ansixinta howlgalka AMISOM iyo sida howlgalkoodu u qaabaysan yahay ma dadejin karaan howlgalkan oo kale ayay u sheegtay galka baarista Samiire Geyd waxay ka digtay in arrimahan oo kale ay keeni karaan is-aamin darro ka dhaxaysa laba hay-adood oo ay tahay inay wada shaqeeyaan ciidamada AMISOM waxay ka shaqaynayeen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007 waxayna ku guuleysteen inay ilaaliyaan dawladda Soomaaliya iyo xarumaha dawladda iyo inay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka qabsadaan al-shabaab iyagoo iskaashi la sameynaya ciidamada Soomaalida guddi qiimeyn ah oo ka socda Midowga Afrika ayaa dhawaan dhammaystiray warbixin ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyay 2021 qiimeyntaasi waxay ku talinaysay in 4 talo midkood la qaato marka ay noqoto mustaqbalka AMISOM ee wixii ka dambeeya sanadkan 4taasi qodob oo kala ahaa in howlgalku uu noqdo mid wadajir ah oo ay wada yeeshaan Midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo in dib u habeyn iyo dib u howlgelin lagu sameeyo ciidamada AMISOM ee xilligan jooga Soomaaliya iyo in Soomaaliya la keeno ciidamada heeganka ah ee wadamada bariga Afrika iyo in gebi ahaanba ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya AMISOM waxay sheegtay inay door bidayso qodobka ugu horeeya ee ah in howlgalku uu noqdo mid ay wadajir u yeeshaan Midowga Afrika iyo qaramada midoobay dawladda Soomaaliya weli ma aysan sheegin wejiga ay doonayso inuu yeesho howlgalka AMISOM wixii ka dambeeya 2021 hase yeeshee waxay gebi ahaanba ku gacan saartay qiimeyntaasi ay sameeyeen guddiga ka socda Midowga Afrika